halkan waxaa lagu wareysanayaa wiil daadiisu ay aad u yar tahay waxaana la weydiinayaa su'aalo la yaab leh. haddaba wiilkan ayaa magaciisa waxaa la yidhahdaa Marwan, waxaana markaasuun uu ka tegay Soomaaliya, waxaana uu Maraykan joogaa 2 bilood oo keliya. sababta loo wareysanaya ayaa ah maadaama uu ku cusub yahay Maraykanka oo ay tahay markii ugu horeysay ee uu tegay in laga wareysto xaaladii Soomaaliya ay ku sugan tahay ama dhulka hooyo. haddaba si cajiib ah ayuu u warramay wiilkan yar. waxa la weydiiyey, Marwan bal ka waran Soomaaliya iyo Maraykanka kee ayaa wanaagsan? waxa uu yidhi, waa 2 wadan, mid wanaagsan garan maayo, laakiin waxaan ku garanayaa in Soomaaliya iyo Maraykanku ay yihiin 2 wadan oo aan waxba ku kala duwanayn. waxa kale oo la weydiiyey, Marwan bal ka waran markii aad timi Maraykanka maxaa kugu la yaab badnaa oo aad aragtay? waxa uu yidhi inkastoo la yaabku aanu dhammaan oo mar walba uu soo noqnoqonayo, haddana waxa uu yidhi markaan airportka ka soo degay waxaan arkay 3 nin oo waaweyn oo istaaga ku kaajaya. wuxuu yidhi wixii iga yaabiyey waxay ahayd bal ka waran 3 nin oo waaweyn oo inta ay siibada fureen istaaga ku kaajaya. dadkii oo dhan ayaa ku qoslay, waxaana uu la weydiiyey oo lagu yidhi markii aad Soomaaliya joogtay miyaanad weligaa arag qof istaaga ku kaajaya? waxa uu yidhi weligii maan arag qof istaaga ku kaajaya. waxaana uu yidhi waa markii ugu horeysay ee Maraykanka aan ku arko 3 nin oo aanan u kala garanayn inay yihiin gaalo iyo muslim laakiin istaaga ku kaajaya. Soomaaliya wuxuu yidhi markii aanu joognay qof walba uu fadhiisan jiray oo istaaga wax la yiraahdaa meesha ma uu jirin. wixii ku yaabka badnaa aad aragtay inta Maraykanka joogtay wala iga sheekay. waxaa ka 3 nin oo sare joog ku qaadatay. bal si dadka qosolkooda wax ka maqli waaye maxaa tiri 3 nin oo sare joog ku kaajaya baad aragtay? halkee baad ku aragtay waxaan? airportka. waxa uu marayay wadada, darawalkii gaadhiga waxa uu ku yidhi ii joog halkan. daaqadda ayuu dejiyey. waxa uu yeeray mid ka mid ah dumarkii wadada taagnaa. waa gabadh wadada ku ganacsata mar walba. waxaana uu ku yidhi xaaladaada iga waran. waxaa looga soo qabtay adeegii uu dalbaday oo ahayd in xasiid laga iibiyo gabadhani ay samaynaysay. waxa uu ku yidhi gabadhii, ganacsigaaga ka sheekee. waxay ku tiri ganacsigaygu wuu wanaagsan yahay alxamdulillaah. waxa uu ku yidhi bal ka waran haddii aan kuu noqdo macaamiil ku soo booqata mar walba oo uu halkan marayo. waxaana madaxweynuhu u ballan qaaday haddii mar labaad halkan ay ku kulmaan inuu haddana mar kale ka iibsan doono ganacsigan ay iibinayso. waxaana uu ku yidhi waxaan ilaahay kuu baryayaa inuu ilaahay kuu barakeeyo oo marka labaadan halkan soo maro aan arko ganacsigan oo intan ka ballaadhan oo barakaysan. waxaana uu yidhi waa inaad samaysaa dadaal fara badan sidii ganacsigaagu uu miro dhali lahaa. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan lacagtii isaga ayaa jeebadiisa ka bixiyey oo ka iibsaday gabadhan alaabtii ay iibinaysay oo ahayd xasiida. sidaas ayuu kula wareegay oo uga iibsaday marwadan. waxay tiri madaxweynuhu waa markii ugu horeysay ee uuna soo booqdo, laakiin markan waxa uu marayay wadada mar kaliya ayuu la kulmay ganacsigayga. waxaana uu iga dalbaday inaan u tago. waxa uu igu yidhi aniga ayaa kaa iibsaday qayb ka mid ah alaabtii aad iibinaysay. waxaana uu siiyey lacagtii uu igaga iibsaday oo waxa uu iga soo saaray jeebadiisa. allaha barakeeye. waxa uu yidhi madaxweynuhu haddii mar labaad halkan aan soo maro waxaan ku noqonayaa macaamiil oo mar walba waan halkan soo marana waxaan kaa iibsan doonaa alaabtaadan. waxay tiri madaxweynuhu waxa uu igu yidhi waxaan ilaahay kaaga baryay in ganacsigaagu uu noqdo mid intan ka ballaadhan oo ilaahay uu ku barakeeyey. waxay tiri mar walba dadka ayaana soo booqda waayo waxaan joognaa goob dalxiis. halkani waa goob aad u qurux badan, waana goob uu ilaahay barakeeyey. waxay dadku u yimaadaan si aan caadi ahayn, waxaana ay yimaadaan cimiladan iyo jawigan quruxda badan. aniguna waxaan ku iibinaa hadda wixii marka aanu hayno ee halkan aan ugu talagalnay
dadka imanaya ama soo booqanaya maantana waxaa ka mid ahaa madaxweynihii dalka Recep Tayyip Erdogan